waxaan naxdin iyo nasiib daro ah in maalinta taariikhda ay ku beegan tahay 14 February dad muslimiin ah ay xusayaan baadari Kirishtan ah geeridiisa iyo waxay caabudi jireen Roomaankii hore. waxaan galeynaa meel walba ay gaaladu galaan, waxaan sameyneynaa wax walba ay gaaladu sameeyaan, xataa waxaan la galnay cibaadadoodii iyo xuskoodii ay ku weeneenayeen dad ama waxay caabudi jireen. haddaba waxaa loo baahan yahay in aan iska fiirino oo aan wax aqrino, waa inaan ogaanaa waxa aan sameyneyno waa maxay, diintuna maxay ka leedahay, yaana noo keenay. muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa wuxuu yahay Valentine's Day oo loola jeedo maalinta jacaylka iyo halkuu ka soo bilowday diinta waxay ka qabto. mar walba ay taariikhdu ku beegan tahay 14 February waxaa dunida gaalada loogu dabaaldegaa maalin loogu magac daray Valentine's Day ama maalintii jacaylka. laakiin waxaa isweydiin mudan, waa kuma ninkaasi, maxaana loogu dabaaldegayaa maalintaas, magaciisa Valentine maxaa keenay? Valentine's Day ama maalinta jacaylka waa xasuus ama xus loo xuso Kirishtan iyo Roomaankii hore. markii aan isweydiinayno kumuu ahaa Saint Valentine, muxuuna ugu xiran yahay xuskaasi? maalintaas waxaa bilaabmatay xilligii boqortooyada Roomaankii hore. 14 February waxay u ahayd maalin ay weyneeyaan Juno waxay ahayd boqorad ka mid ah ilaahyadii Roomaankana waxay kaloo u aqoonsan yihiin Juno ilaaha haweenka iyo guurka. maalinta ku xigta oo ah 15 February waxaa bilowday xuska Lupercalis oo isna ahaa waxay caabudi jireen. haddaba waa maxay taariikhda Valentine's Day? nolosha wiilasha iyo gabdhahaba way kala fogaayeen xilligaas. waxyar ka hor u dabaaldegidii Lupercalis, magacyada gabdhaha Roomaanka waxaa lagu qori jiray waraaqado, isla markaasna waxaa lagu dhajin jiray sabuurad. wiilasha dhalinyarada ah waxay ka dooranayaan gabadha ay rabaan, waxayna heesanayaan inta uu socdo dabaaldegaas. markaas kadib waxaa laga yaabaa in ay ilmo dhexdooda ka dhashaan oo ay kadib isjeclaadaan ama isguursadaan. maamulka boqortooyadii la oran jiray Claudius ee Roma wuxuu gali jiray dagaalo dhiig badan oo ku daato. boqorka Claudius wuxuu ku dhibbanaa inuu helo askar si uu u xoojiyo militarigiisa iyo dagaalada uu galayo. wuxuu rumaysnaa in aynan nimanka Roomaaniska ah aynan rabin inay ka tagaan jaceylkooda iyo qoysaskooda. boqorkii Claudius wuxuu ka joojiyay boqortooyadii Roma guurkii oo dhan, wuxuuna mamnuucay in la guursado si ninku uunan u yeelanin qof oo ku xirnaado. Valentine xilligaasi wuxuu ahaa wasiir dhinaca kaniisadaha iyo diinta kana tirsan dowladda Claudius. isaga iyo Saint Marius waxay taageereen dhibanayaashii Kirishtanka ahaa oo loo diiday guurka. dhowr qofna si qarsoodi ah ayay iskugu dareen arrintaas darteeda. Saint Valentine waa la qabtay, waa la xiray, waana la garaacay ilaa uu ka dhinto. 14 February ayaa waxaa dhintay Saint Valentine sanadkii 270. taariikhdaas Roma waxay ku noqotay mid khaas u ah oo la xuso sanad walba bisha February, waana la faafiyay iyadoo lagu weyneenayo waxayna ku sheegeen ilaaha Lupercalis. madaahibta Protestant Christian Church-ka ee Roma waxay iyadana dooratay ama aqoonsatay maalinta jacaylka adduunka in loo dabaaldego sanad walba ee 14 February. haddaba walaalayaal, diintu maxay ka qabtaa dabaaldega maalintaas? islaamka ka hor reer Madiina waxay lahaayeen 2 maalmood ay ciidaan, waxaana la sheegay inuu dhaqankaasi ugu yimid dhanka Farisiyiinta, waxaana loo yaqaanay Nayruus iyo Mahrajaan. Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee marka oo Madiina u soo hijrooday kadib ayuu weydiiyay waxay ahaayeen 2 maalmood, waxayna ugu jawaabeen waa 2 maalmood aan ciyaari jirnay xilliga jaahiliyada. yacni waxay ula jeedaan islaamka ka hor. Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ku yiri qad abdalakum Allahu khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. taas ay micnaheedu tahay Alle wuxuu idinkugu bedelay 2 ka khayr badan, Ciid al-Adha iyo Ciid al-Fidriga. haddaba walaalayaal, xadiiskaas waxaan ka qaadanaynaa in ay xaaraan naga tahay inaan u dabaaldegno wixii ka soo haray labadaas ciidood. Allah subhanahu wa ta'ala ha inaga dhigo kuwii khayrka isku sheega xumaantana iska reeba. wabillahi tawfiiq.